تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تجمع الأحباب لنصنع الفجرا. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تنفيه السنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. باتحاد وإخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. intaana kelimada gudagelin waxaan codsanayaa dadka kaamerooyinka wax ku sawiraya aan ahayn kuwa cajaladaha ee duruus ahaan looga faa'iideysan doono waxaan ahayn dadka kaamerooyinka wax ku sawiraya ama telefoonada wax ku sawiraya waa mamnuuc. laano sawirka mar haddaan laga faa'iideysanaynin ama darsi ama dacwo aan lagu gudbinaynin asal wuxuu ku yahay baaqi ku noqonaya tahriimka. marka ma saamaxayno mana banaana taayada marka waa ka cudur daaranaynaa insha Allah taala hal iska ilaaliyo. kelimada cawaan u ballansanahay saan horeyba u sheegnay cinwaankeedu waxa weeyaan as-Soomaal bayna al-aalaam wal-aamaal. Soomaaliya oo u dhaxaysa xanuunyaal haya iyo yididiilooyin muuqda. yani xaalad halisay ku jirtaa way xanuunna waa haya oo dhib daran waa ku jirta. yididiilana iyo rajana way qabtaa. isla rajada haddana waxaa garab yaala cabsina waa garab taala. ciwaanka muxaadaradu ama kelimadu waa taas. ma doonayo inaan taariikh dheer idin galo oo maxay ahaan jirtay Soomaaliya maxaa la yiraahdaa maraaxishay soo martay warka dheer ma doonayo inaan galo. laakiin wadciga maanta ay ku jirto
iyo xaaladihiisa qaybo ka mid ah inaan tilmaamo ayaa ujeeddadeedu ay tahay. arrinta Soomaaliya marka waa arrin runtii mucaqqad ah fi gaayati tacqiid. waxaa yeelay waddan 20 sano ku dhowaad dawlad la'aan ah, intaana mashaakil ay ka socotay, waa naazila min annawaasil. waxay culimmada fiqigu u yaqaanaan naazilo, waa masale adag. mar hadday sidaas tahay, cilaajka iyo daawada iyo dhibkan maxaa lagaga bixi karaa iyo xaaladaha kolba isbedbedelaya aragtida laga qabaayo inay kala gedisnaato marka la yaab ma leh. leanna tabiicada qadiyada saas, qadiyadu mar hadday mucaqqad tahay, naazilana ay tahay, waxaa ka mida dabeecaddeeda in aan la isku waafaqin oo aragtidu ku kala gedisnaato. dabeecaddeedaa keenaysa. dhinacyo kooban baan marka aniga aan doonaya insha allahu tacaala in hadalkaygu aan ku koobo. mar dhow baan aniga ka yimid sida la ogsoon yahay Soomaaliya. waxaan ku tegay martiqaad rasmi ah oo aan ka helay culimada Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo la baxay magaca la yiraahdo lajnatul musaalaha wa tasxiix. qayb culimada Soomaaliyeed ka mid ah way nala soo xiriireen arrinta Soomaaliya inay ka fadhiistaan oo ka hadlaan ay qorshaysteen. dowrkii culimada ay gutaan inta tabartooda. culimadii Soomaaliyeed wixii dibadaha jiray bay la xiriireen intii ay kari kareen. martiqaad bay u fidiyeen in lagala soo qayb galo shir ay qabanayeen. markay nala soo xiriireen culimo kooxa oo Soomaalida Kenya joogta culimada ka mid ah ayaa meeshan lagu fadhiistay, waa la tashaday. markii la rogrogay kadib waxaa la isla gartay in shirka laga qayb galo oo wixii tala lagu biiriyo, wixii waddanka maslaxadiisana ra'yi iyo tala laga geysto. fadhigii culimadu meeshan ay fadhiisteen waxaa la qorsheeyey inay baxaan 3 nin oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Maxamed Uthman Calasow iyo Ahmed Xasan Mursal, Sheekh Masudani iyo aniga. 3daas inaan shir ka qayb galno ayay culimadu qorsheeyeen. waxaan baxnay 15kii bishii hore, bishii labaad, maalin axad ay ahayd. shirka culimadu hortanna ayuu bilowday, sabtidii buu bilowday, annagana axadii baan baxnay. axadii markaan baxnay, isniintii galabnimaan tagnay. maxaa yeelay ruudka noogu dhow ama jidka noogu dhow wuxuu noqday inaan marno Dubai, kadibna Djibouti aan transit ku marno, kadibna sida xamar aan ku tagno, Hargeysa haddana transit ku sii marno. jid dheer oo markaa taqriiban 24 saac ka badan ah oo safaraan galay. maxaa yeelay jidkan tooska ah oo Nairobi Muqdisho ah xoogaa wuu daahsanaa oo maalmaha uu baxayo haddii aan sugno waxaan ka yaabnay inaan ka daahno shirka. safarka kadib waxaanu tagnay magaalada Xamar. shirkii culimada oo socda 2 bari, maalinkii 3aad ayaan tagnay oo ka qayb galnay. shakhsiyan aniga waxaan isleeyahay safarkaasi aad buu faa'iido iigu lahaa. maxaa yeelay wadciga Soomaaliya oo nin kastoo Soomaali ah meel kastoo uu joogaba uu danaynayo, markaad banaanka ka joogto iyo markaad dhex gashay suuradu waa ku kala duwanaanaysa. yani nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa waad garanaysaan, xadiid Abi Hurayra ee rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam laysa al-khabaru kal-mu'ayana. warka iyo il aragtayga isku mid ma. shayga markuu khabar iyo warku soo gaaro iyo markay ishaadu qabato la noolaato isku mid ma. hadalkaasi dadka qaarkood waxay ka dhigaan mahmaah ama murti, laakiin waa xadiis nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam. laysa al-khabaru kal-mu'ayana,
خطيب باسو صاري البغدادي عن أبي هريرة، كذلك الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك بكورية. سقو انت كدير نوحا سو صاري أحمد في مسنده، طبراني في الأوسط، حاكم في المستدرك من حديث ابن عباس. لفظي سنة وحوها رسولك صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. وركا هي أركتيد اسكمدمة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل. الله تبارك وتعالى وحو أشيغ نبي موسى وحي قوم كيسي سميين ودبق عابد الديسية، فلم يلقي الألواح. وركي مركو الله أشيغ لوحيدي نبي موسى تورين وون حناقي وكحماضي وكعروضي، لكن موسى قالين حد والواح تورو، حد والواح تورو ما قالين. فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. markii intuu soo tagay uu u yimid oo uu arkay waxay sameynayaan, xaaladiisu tii hore mowqifkiisu waa ka adkaayo, intuu cadhooday buu looxyadii tuuray ilaa ay jajabeen buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. yaa markii hore u warramay Allah baa u warramay, laakiin warku ma gaarsiinin inuu looxyada tuuro. markuu se xaalkii u yimid oo arintii uu arkay waxay gaarsiisay, aragu wuxuu gaarsiiyay inuu alwaaxdii tuuro ay waliba jajabto. xadiidkaasi waa xadiis nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam. sheekh albanina wuxuu ku saxiixinayaa mishkatul masaabiha iyo sidoo kale tasxiixul jaami' as-saghir. xadiidku waa sugan yahay. marka muhiimadan kale marka waxa weeye waaqic muayyana markaad banaanka ka joogto dhageysanayso iyo marka aad dhex tagto farqi weyn baa u dhaxeeya. si gooniya marka aniga runtii faa'iido ilaha waxyaalo fara badan iyo macluumaad fara badan oo moogaa oo maqal igu ahaa baan wax badan sidii loo sheegay si ka gedisan u soo ogaaday, wax badanna xaqaa'iq baan soo ogaaday, wax badanna wali waa iga sii qarsoon yihiin. inta kadib waxaan doonayaa hadalkayga inaan ka dhigo ala shakli maxaawir, yani maxaawir mixwar inaan u qaado ayaan jeclahay insha Allah ta'ala. qasadkayguna waxa weeyaan dad fara badan bal inaan suurada hor dhigo fahansii kara isku dayo. ciddii aragti muayyana ka qaadatayna in loo cudur daaro la isku dayo. ra'yigaaguna inuusan ka dadka ka fiicnayn in lagu sheego waa muhiim, waa arrin muhiim ah. risaalo noocaas oo kale bal inaan ogaano, wabitaali seebaa dhulkaasi iyo ummadaasi qadiyadeeda wax looga qaban karaa bal inaan tilmaamo ka bixinno. inaan asiibnana waa dhici kartaa, inaan ku khaldannana waa suroobi kartaa. mixwarka koobaadi waxa weeye inaan qeexo oon tacriifiyo jihada noo yeedhay lajnatul ulama, lajnatul musaalahati wa tasxiix, bal waxay yihiin in wax yar qeexid ah ka bixiyo. ilaa waqtiba ummadda Soomaaliyeed waxay dareemaysay in dowrkii iyo kaalintii culimadu maqan tahay. qadiyada Soomaalida ama qadiyada Soomaaliyeed xarakaadka iyo axsaabta iyo ururada dagaalamayay ee la dagaalamaya cadawgii wadanka soo galay, khilaafkii ay iskhilaafeen, wixii ka dhaxdhacay, dowrkii ay culimo lahaan jirtay ee musaalaxo iyo tasxiix iyo khaladaadka jiri inxiraafaadka in la saxo inay maqan tahay baa ilaa mudaba la tabayo, dadka qaarkood ay tabayeen isweydiinay. taasi marka waxay keentay bal arinta in laga tashado sidii loo gudan lahaa dowrka isaga. waxaa dhacday magaalada Jalalaqsi inay isugu yimaadeen koox ka mid ah kooxihii, waxaan dhihi lahaa kooxo ka mid ah fasaa'ishii dagaalamaysa ee ciidamada Etoobiyaanka la dagaalamaysay si ay wadanka uga saaraan markuu khilaafkii adkaaday kadib. kooxahaasi markay isugu yimaadeen waxay u arkeen inay daruuri tahay in culimada Soomaaliyeed ay isu yimaadaan, dhibkan jirana ay xalkiisa raadiyaan. waxaa ka dhashay in culimadii ay isugu tageen tiro aan yarayn taqriiban magaalada Burco dhowr bilood ka hor. markay isugu tageen waaqaca arinta Soomaaliyeed bay ka hadleen, tadaawuleen, rogrogeen. shirka waxa loogu yeeray culimo badan, annaga waa loogu yeeray, rag kale dibadaha jira waa loogu yeeray, laakiin raggii loogu yeeray
in badan oo kamid mayna tegin shirka culimadu markay isugu tagtay waa midka ay ku sameeyeen magacan la yiraahdo lajnatul musalahati wat tasxiix meeshaas uu ka soo baxay lajnadaasi marka waad garanaysaan oo ujeedadeedu waa laba qodob waxa weeyaan dad ishaya in la musaalaxeeyo oo la heshiisiyo qodobka labaadna wax khaldan in la saxo labada tiir waa musaalaxa oo heshiisiin ah iyo tasxiix oo khaladaad jira sixidooda labada qodob baa marka targetku u ahaa culimadii markay fadhigii dhameysteen waxay ka soo saareen bayaanaad fataawi sharci ah qadaayaad marka taagnaa inay ka hadlaan sidii marka iyaga ula muuqatay inay uga hadlaan bayaanaadkoodina waa kii la soo galiyay warbaahinta website-yada waad ka heli karaysaan meeshaas ay ku baahiyeen xaaladii marka taagnayd bay ka hadleen culimadii meesha isugu tagtay markay halka dhameysteen waxay bilaabeen inay burco baabuur ka soo qaataan oo wadanka soo dhaxmaraan meelihii ay ka soo galeen raggii dagaalamayay iyo kooxahoodii kala gadisnaa way soo dhaxmareen ilaa waxay soo mareen magaalooyinka oo dhan dadkii marka kooxihii meesha joogay oo dhan way la kulmeen xadaaday soo mareen dhuusamare bay soo mareen baladweyne soo mareen waa soo socdeen ilaa xamar ay ka yimaadeen xamar markay yimaadeenna juhuudoodii iyo dadaalkoodii bay wadeen oo ah khaladaad jiro oo markaasi sharcan saaxada yaalana sidii loo sixi lahaa walaalahana in laga shaqeeyo qaybsanaantooda in laga baxo la mideeyo labada qodob bay marka kala hadlayeen qasadkooduna ah culimadaasi magaalada xamar bay yimaadeen safartoodii ku soo dhamaatay taqriiban kooxaha ama fasaa'isha intooda badanna way la kulmeen qaar yar ama qaar kamida oo ka cudur daartay waa jiraan laakiin aqlabkooda way arkeen oo way la kulmeen taasi mid bay ahayd waxa ku xigtay markaan tagnay xajkii hadda ugu dambeeyay magaalada Makka ayaa haddana rag culimada ka socda soo xajiyay culimadii Soomaaliyeed xajka tagtay bay isugu yeedheen qayb kamida kolba intii ay heli kareen iyo rag Makka sii joogayba ayadana fadhi baa meesha lagu qabtay annagu waan tagnay raganaga Kenya ka tagay qaar kamida fadhiga isagana waxa ka soo baxay bayaanaadka laga yaabo aad aragteen iyagana warbaahinta lagu baahiyay website-yada la galiyay oo iyadana qodobo marka taagnaa ay culimadu kaga hadleen inta kadib waxa socotay qalqaala ah in shir weyn lagu qabto magaalada Xamar qaban noocaas socotay ayadoo taasi ay socoto qasadkuna uu yahay khilaafka gudaha ka jira ee kooxaha dhex yaala sidii lagu dhameyn lahaa khilaafka banaanka ka jiro oo ragii banaanka jira ay iskhilaafeenna sidii isagana loo cilaajin loo daaweyn lahaa ayadoo sida arintu ay u socoto ayaa marka xaalku isbedelay oo ragii qaarna uu dawlad sameysteen oo nidaam dhisteen ragna ay ay ka soo horjeedsadeen xaaladaas marka waxa ku soo hagaagay mu'tamarkan hadda aan ka qayb galay oo culimadu ay ku magacaabeen mu'tamar المصالحة أو مؤتمر علماء الصومال للمصالحة والتصحيح مؤتمر كاسي وحو باللوضي أفري طبانكي بيشي لباد لوضا كوني سقالك سنة كان إلا وحو السعودي سقالي طبانكي بيشي لباد تقريبا لحبري بوسع ومالك اللي حاد وختمها يقبقبقوها وحكا سو قيب قلي مؤتمر كاس إلى أفرتن دور علماء الصوماليات وقارنا ودنك قديسة أيكا كليمادين قيبها كلا قديسانة ودنك qaarna ay banaanka ka tageen dadka meesha isugu yimid iyo culimada meesha ku kulantay ma ahayn itijaah muayana ma ahayn saxwada itijaahaadkeedo dhan baa ku jiray yani qayb ka maqan ma jiro itijaahaadka markaan ka hadli doona insha Allah ta'ala ama kuwa xarakad diida ha noqdeen ama kuwa xarakaada ha noqdeen ama xarakaadka kala duwan ha noqdeen wax ka maqnaa ma jiro والسويمت maxay ilaa muhiimada taala ee culimadu marka isugu timid baa waxay ahayd qaasim mushtarak ah iyo mushkilo ummadoo dhan u taala oo waajibta sharciya tahay in la iska kaasho looma kala hadin marka wala isugu yimid mu'tamarku marka tabiicadaas uu lahaa waxay soo saareen marka qaraaraadka iyo go'aamada iyo bayaanaadka aad aragteen
oo iyagana warbaahinta lagu baahiyay bay soo saareen mixwarkaasi aan inta kaga baxo oo ah inaan bal waxoogaa idin qeexo culimadan magacan leh iyo waxa ay yihiin mixwarka labaadi waxa weeye saaxada marka ay culimadu shirka qabanayaan ilaa iyo hadda waxaa ka jira dhowr quwadood quwadaha saaxada yaalla bal ayagana inaan waxoogaa ka bixinno wasfiya ka bixinno maxay wax qarsoonna ma sir qarsoon ma oo hadda sir caawa aan faafinayno laynaga qori doono ama sirdoonku ay sajilan doonaan ma waa wax warbaahinta ku baahsan cid walbana ay ogsoonta waxay marka qayb ka qaadanaysaa inaad fahanto waaqica jira ee abuurmay si aad bal u fahanto qaraaraadkan culimada iyo go'aamadooda haddaad tala ka geysanaysana tala saxa saad u geysato bal taladaadu say u waafaqdo waaqica u waafaqdo macnaha suura macnaha inaan ka bixinno yani quwaadka ama alqiwa alqaa'ima fi saaxa ama fi lmiidaan hadda waqtigan hadda xaaliga kow waxa weeye darafka ama qaybta koobaad waa nidaamkii jabuuti lagu soo sameeyey oo walaalihii maxaakimta ka tirsanaan jiray qaar ka mid ah ay awood qaybsi la sameeyeen dawladdii horey u jirtay xubnaheedii intoodii badnay waa qoladaas waa nidaamkaa ku soo dhismay jabuuti ku soo dhismay qolyaha jabuuti ku soo dhismay iyo nidaamka jabuuti ku soo dhismay gudaha waddanka wuxuu ku leeyahay ciidamo lagu xisaabo iyo kuwa rasmiyaba dawladdii hore ee waddanka axmaarada soo gelisay iyadii axmaaradiina israaceen oo baxeen ciidamo ka hadhay baa jiro oo jooga waddanka jooga khaasatan magaalada muqdisho ciidamadaasi waxay u xisaabsan yihiin nidaamkan ama dawladdan jabuuti ku soo dhisantay waa garab qaybta labaadi waxa weeye maxaakimtii qayb ka mid ah oo uu hogaaminayo ama uu hogaamin jiray muxuu ahaayey sheekh cabdiqaadir cali cumar oo hadda wasiirka arrimaha gudaha ah janaax iyo garab dhan oo maxaakimtii ah oo isagu uu hogaamin jiray ayagana waxa uu lagu xisaabiyaa muxuu ahaayey ama xisaabsada dawladda xisaabsada oo maadaama dee odaygoodii uu noqday wasiir noqday tabcan ayagana dawladdaasaa la isaga xisaabiyaa laakiin waxaa cajiib oo mulaaxado leh nimankii iska mooryaanta ahaa ee dawladdii hore ka hadhay ciidanka ah walaalahan wadaadada ahee soo dagaalamay ee cabdiqaadir odayga u ah way diideen inay ku darmadaan ciidamadii ugandhiyaanka oo xafiisyada jooga oo meelaha maamulahayana ayadana inay ku darmadaan diide saldhigyo gooniyay magaalada ka joogaan oo ay fadhiyaan waa rag noocaas ayaga ahaan aragtidooda niman muxuu ahaaye mowqif ahaan dee dadku waa kala duwanaan karaa laakiin sida xisaabta meesha taalle dadweynuhu ay xisaabahayaan ama aragtida xisaabana sidaas wey waa qoladaas waa nidaamkaas jabuuti ku soo dhismay iyo gudaha waxa uu ka yahay qolada labaadi waxa weeye waa ciidamadan amisomka la yidhaahdo ee ajnabiga ah ee ka kala socda waddanka uganda iyo burundi ayaguna kollay darafkay waddanka ku soo galeen waa la ogaa wixii ay geysteenna waa la ogyahay ma qarsoona laakiin waa quwad jirto oo waddankii joogta waxay gacanta ku hayaan airportka iyo dekadda iyo xafiisyada dawladda intaba iyaga gacanta ku haya khaasatan weliba ciidamada ugandhiyaanka baa gacanta ku haya kuwa burundiyaanku iyagu waxa weeye meel bay isaga xaraysan yihiinoo naftooda unbay ilaaliyaan ayagu hadda mowqic muhimo ay joogaan ma jiro laakiin iyagun baa iswaardiyeeya qoladaasina waa qolo jirta waay qoladaasi marka
waa meelaha ugu khatarsan ee aragti ahaan lagu kala gedisan yahay waana insha Allah taala waan tilmaami doonaa waan ka hadli doonaa qolada saddexaad waxa weeye waxa hadda lagu itlaaqi karo fasaa'isha hubaysan oo rag Itoobiyaanka la soo jihaaday ah sida qoladii hore aan sheegnayba isla markaana hadda xukuumadan ku soo dhisantay Djibouti aan ictiraafsanayn oo aanu haysanin inay xukuumad tahay kalsoonina aan ku qabin qoladaasina waa laba qolo laba la yiraahdo xisbul islaam oo mardhow samaysmay ka xisbi ahaan macnaheeduna ay tahay afar kooxood oo isu tagay afar kooxood oo fasaa'ishi jihaadaysay kamida oo isu tagay way qoladii reer Raskamboni muaskar la yiraahdo muaskar al-Faruq ama aano loo yaqaano qolada saddexaad oo jabhal islaamiga nimanka la dhijiray ah iyo qolada afraad oo maxaakimta qaybtii uu hogaamin jiray muxuu ahaay Sheikh Hassan Daahir ama Dr. Umar Iimaan odayo ah wasaa'il al-i'laamkuna markay sheegayaan waxay yiraahdaan janaaxu asmarayda janaax garabka asmara magacaas kullu iyagu lama bixin barmaleena laakiin waa lagu dhajiyay kuwana waxa la janaaxu Djibouti kuwana waxa lagu magacaabay janaaxu asmara qolan halkaas ku hadhay qolan xaqiiqan afarta kooxood isku tagay oo hal maamul wada samaystay iyo hal hoggaan ciidamadoodiina isku darsaday ayaa waxa la yiraahdaa al-Hizb al-Islami meela kamid ah wadanka gacanta ku hayaan magaalada Muqdisho qayb muhiim ah ka joogaan qolada saddexaad ama waxa dhila farca labaad ee qaybta kamid ah waa qolada loo yaqaan xarakatu shabaab al-mujaahidiin oo iyaduna qaybo wadanka kamid ah haysata gacanta ku haysa magaalada Muqdisho qayb ka joogta fasaa'ishaas dambe ee labada qaybood hadda aan ka dhignay ama labada qaybood u kala yaala hal qodob waa ka dhaxeeya halka qodob wuxuu yahay aqoonsi la'aanta xukuumadda waa qodob ka dhaxeeyo kalsooni la'aanta iyo inay yihiin niman khayaamay midhihii jihaadka halka horta uu taaganta laakiin see loola mucaamaloonaya iyo xukunka ay qaadanayaan oo ku kala duwan yihiin يعني فكريا اسكاغميد ما واقع سيده لو واجهaya hada abuurmay iyo mafaahiimta qaar koodna waa ku kala gedisan wana laba quwadood oo ka jira ayaguna wadanka jira taasi waxa weey marka waa awoodaha ka jira markaan ka hadlayo iyo waaqicna hada aan sawirayo waa gobolada koonfureed iyo gobolada dhexe qayb ka mid ah laakiin de kama hadlayo Somaliland iyo Puntland iyo kama hadlahay kuwaasi wax weeyaan muxuu ahaayay waa wadci kale ku jiraan ee qaybahan dhibaatada badan ka abuurnayd weeyaan waxaan ka hadlayno ee aynu muxuu ahaayay aan macluumaadkan aan sheegayna ay ku saabsan yihiin sida markii ay u kala jiraan waxa isagana mixwarka afraad ee mudan inaan wax ka tilmaanaa shacabka iyo aragtidiisa waxa la yiraahdo muxuu ahaay رؤية الشارع وحل يراد جد رؤية الشارع أركتيد جدك أما أركتيد الدوينة سي وقت كان حالي أركتيدود وسوي شعبك خاصة بالذات ري مقدشو إيو إريوينكا أي دقالدو كالسعودين وحو الدريمية إنو دب آدو فربضان صومري وفعلا دب وين أيو صومري oo muddadii labada sano ugu dambeysay hadda dagaaladii Ethiopiaanka la galay ciidamadooda lagu jiray shacabkuna wax ka galay fasaa'isha mujaahidiintuna ay ku jireen oo loo kala harin dib aan yarayn baa dadka gaaray maalintii maxaakimta ay taagnayd bay ahayd oo dagaaladii ahliga ahaa iyo qabaa'ishii isleynaysay waxoogaa inta laga soo bogsooday magaalada ay markaa maxaakimtu gacanta ku hayeen oo amnigeedu roonaa maalinkaas tagay maantana way igu xigtay taqriiban magaalada Muqdisho waxa dareemaysaa farqi aad u weyn waxa la dhihi karaa
dagaaladii ahligaha dhibkay u geysteen dadka 9 goor waxa ka badan dhibkay u geystay dagaaladii Etoobiyaanka lagu la galay magaalada burburka magaalada ku yaala iyo dadka dhibaatada gaadhay khaasatan meelaha dadku ay u qaxeen marka tagto oo ceelasha iyo meeshan muxuu ahaay afgooy iyo xamar u dhaxaysa iyo dadku ay daadsan yihiin ma tatsawar yaani waxa weeyaan bini aadan sida u nool iyo duruufta noocaas oo kale inaad aragto ma suuraysan kartid dadku marka dhib aan yaray baarunti gaaray maadaama dhibka ay soo mareen maanta Ethiopiankii iyo ciidamadoodii ay baxeen shacabku waad garan kartaa markiiba waxa ka dhacday oo isfahansiiyay khalaas dagaal waa dhamaaday aan nasanno guryahanagi aan ku noqonno waxoogaa neeftu naga soo baxdo aan nafisno dagaal waa dhamaaday waxa uu si kabageliyay arinta iyada oo si taageeray waxa marka ka dhalatay baan dhihi lahaa taa iyada ah in ay nidaamkii Djibouti lagu soo dhisay taageero ay u fidiyaan oo taageero la dhihi karo waa aqlabiyo aad u badan nisbadeeda anigu ma xadidi karo ayaa shacabku waxay taageersan yihiin khaasatan goobihii dhibaatooyinka ka dhaceen intooda badan waxay taageersan yihiin nidaamkan Djibouti lagu soo dhisay waadna ka garan kartaan istiftaaga lagu sameeyay iyo marka idaacadaha ay ka hadlayaan iyo waad garan kartaan sababtu waxa way dadkii waa daaleen waa mid labaad ee waxa weeyaan xukuumadan soo dhisantay nidaamkan Djibouti ku soo dhismay wadaada hogaaminay halaya waa inaad tirahdaan Umar Shariif baa wadaada qaar ku xasan baa jira ya warinaga dhexdeena wax yaala dadweynuhu ma oga hebel wadaad ma ah iyo waa wadaad iyo waa khaa'in iyo waa saadiq iyo waa amiin inaga dhexdeena taala hadaynu wadaadana laakiin dadweynuhu ninkii nadiif ah ee muxuu ahaayay aan lagu aqoonin darooga iyo muxuu ahaayay jaad iyo qashin iyo aan lagu aqoonin wadaad boorta u yahay waa mid labaade la idin ka garowsan maayo Shariif wadaad ma wax ka soo akhridan leesh laana shalay markaad wadanka qaybihiisa koonfureed gacanta ku hayseen oo fiyoobaydeen oo ciidina idin la dagaalamaynin soo idinku maydaan madax ka dhigan oo maydaan dhihin waa ka ninkii madaxda noo ahay noogu akhyaarsana ya maanta uu ridoobay iyo waa gaal iyo waa khaa'in iyo idinka dhigaysan marka dadweynaha waxay leeyihiin war nimankani intii hore ninka waa wateen kursiga markuu ku fadhiistay bay ka xanaaqeen صباح رجل الشارع بنانك جوغاي xogtooda hoose iyo dooda adiga dhexdaada taala ma oga صباح dawladan marka dadweynuhu waxa hogaaminaya wadaada hogaaminaya maxaakiimtii shalay 6 sano wadanka nabadda ku soo celisay khayrka keentay waxaan ila 6 bilood baan dhilaha 6 bilood wadanka khayrka ku soo celisay nabadda keentay odaygeedii baa hogaaminaya dawladda waladuu ka fujiyo waa kan wax ka akhri يا وامد قناعه bulshada wax badan bay ka qaadatay waxa qayb muhiim oo ka qaatay sidoo kaleeto oo la dhihi karaa xukuumadda ama nidaamka ku soo dhismay Djibouti oo iclaamiyay in shariicada islaamka uu wadanka dastuur uga dhigayo ayaduna mas'ala waxay noqotay aan sahlanayn اسكراف موبايل قدامي meesha marka waxa yaala dawladii haday leedahay shariicadii baan ku dhaqmaynaa oo wadanka ayaan uga dhigaynaa dastuur rasmi ah shariicada islaamka aan uga dhigaynaa hadda waxa weeyaan warka waa la isku sirahayaa iyo muxuu ahaay bohol baa la isaga boodahaya iyo kuma kalsooni iyo warjira ma aha iyo waa lagu meel gaadhaya waqti baa la doonayaa in lagu qaato waxa soo dhan waa tafaasiir inaga inoo taale laakiin dadweynaha shariica wadanka lagu dhaqahaya yaa sheegay Sheekh Shariif baa sheegay wabillahi tawfiiq warku idili war wadaado
wadaadow haddaad shareeco u dagaalamaysid shareecadii waata haddaad kursi rabtayna hadda masaladu waa masale kale yaan la isisirin oo diinta yaan la isugu sirin baa leeyahay ya waxaan ka warramayo waa aragtida dadweynaha iyo shacabka siduu arka waa suura basiid ah oo rajulka basiidka shaaric uu fahmi karo waa taas weey akal kama dhadhici karto arintaasina iyaduna arin qayb weyn ka qaadatay bay noqotay dawladdu shariicadii bay soo wadaa golihii wasiiraday marisay golihii baarlamaankana way marinaysaa shariicadan raadinaynay khalaas dib oo dhan haduu dhamaanaya wabillahi tawfiiq dibka inaga daayay waxyaalaha qayb ka qaatay bay kamid tahay ayaduna taageerada shacabka marka waxa la dhihi karaa aqlabiyadiisu ra'yigiisu xaq u jira dagaalna ma rabaan sabab hadda dagaal u dhacana ma arkaan aragtidaasina waa aragtida shacabka waxa kale oo iyadana muhiim ah oo meesha ku jirto qayb la dhihi kara iyadana way ka qaadatay waxa faafay waxyaalo fara badan oo sumcaddii walaalihii shalay soo dagaalamay sumcaddoodii iyo jihaadka thimaartiisii sumcaddiisii waxoogaa dhaawac u geysan kara oo waxaa ka mida maalan dad la dilayo hordadkii waa la leynaya mid masaajidka soo baxay baa la dilay baa la leeyahay mid tukanhaya la toogtay nin akhyaar ahaa baa la dilay dadkii waa la dilaya waxaa qayb ka qaatay xoolihii la iska boobay xoolihii la dhacayo oo sharikad baa la isaga habsan mid ganacsada baa la iska boobi mid baa gurigiisa looga tagiyo muxuu ahaay waxoogaa laga qaadan wadaad xaaji naasir leeyahay ayaan maalin meel baan qada ku lahay oday yamani aweeyo markii laga tago muxuu ahaay magaalada afgooy oo loo sii socdo meesha la yiraahdo maxay balcad loo socdo dhulka beeraha waaweyn ay ku yaalaan asindooyinka waaweyn ay ku yaalaan meeshaasaan marka beer weyn oo ku lahabaan maalin qada ku lahay oday asalkiisu yamani yahay oo yamantii Soomaalida ah oo laakiin beero waaweyn meesha ku leeyahay meeshu badegan yahay taqriiban meesha marka uu tagno qadaynay wasoos ka kacnay intaan soo soconay buu noo warramay aniga laba nin oo kala dhacyaha ka socono marka waan sheekaysaneen wuxuu yiri habeen saddexaad meesha waxa uu soo weeraray buu niman 6 miyir wax soo kala baabuur wata nimankii iyaga ahaa qoladii waardigiisa ahaa waardi buu leeyahay bay qaar kamid qoriyo ku qabteen kuwa kale oo u dhawaaba xabada ku riday way carreen mobile baa ka dhacay mobilkii baa la diray waa la hayay waa la soo diray mise waxa soo dirahaya rag fasaa'ishi muqaawamada qaar kamida ba soo diraya nimankii waxay la hadleen rag joogay meesha la yiraahdo balcad iyo odaygii la hadlay oo yaqaan warbal ii imaado way imaadeen meesha haday imaadeen mobilkii arkeen oo aasaarta arkeen waxa yiraahdeen nimankan waa niman ka tirsanaan jiray muqaawamada oo falaagoobay oo murtasiqo oo dadka dhaca hadda ka horna intaan xidhnay bay xabsiga ka fakadeen bay ayagu marka waxay sheeganayaan markay odayga dhacayaan oo isku dayayaan ashabaab baan nahay bilay shabaab marka yaani waxa weeyaan suwar noocaas oo kale fara badan oo dadweynihii ay hayaan baa meesha yaala waxa yaala mas'alo ah degdeg iyo fududaysi la fududaysanayo gaalaysiinta dadka iyo ridda ku xukunka oo iyadana daahiro muuqata ah waxa yaala daahiro kale in dadkiiba ihtijaaz lagu sameeyo inta la qabsado khaasatan qoladan hay'adaha iyo wixii la xiriira kadibna madax furasho laga qaato hadana waa daahiro taal su'aashu waxay tahay marka waxa soo dhan oo yaala waxa lagu xisaabiyo qoorta loo galiyay nimankii dagaalamay laakiin xaqiiqadu waxay tahay baaris rasmi ah marka lagu sameeyo dhacdooyinka noocaas oo kaleeta ah waxay ka dhacayaan dhowr jiho qaar waxa weeyaan
rag ka mida kooxaha iyo fasaa'isha soo dagaalamaya mujaahidiinta ah oo acmaasha noocaas oo kala samaynaya una samaynaya mafaahiim khaldan iyo cilmi yari daraadeed waa jiraan lamana inkiri karo waxaa kaloo iyagana jira oo nasiibul asad ama qayb weyn ku leh madaahirta inxiraafka ah isaabaad murtaziqa ah kooxo iska calooshooda u shaqaystayaal ah oo meel gooniyo magaalada ay ka degan yihiin ma jiro laakiin kolba intay is urursadaan bay meel ku habsadaan markaasay dhacaan dadkana way dilaan waa qaar marka waxa weeyaan maadaama magaca socda uu yahay wadaadda uu yahay qaar badani marka waxay ku shaqaysanayaan magacii wadaadada iyo fasaa'isha mana ka tirsana mana aha cumaamadana waa xidhan yihin cumaamadana waa xidhan yihin oo dadkii markay yidhahdaan maxaa sidan u samaynaysaan ururada ka mid ay sheeganayaan waa kuwan hadda soo sheegayo kale wa qoladaasi waxaa loo yaqaanaa muqaawamada xorta ah baa loo yaqaanaa muqaawamada xorta wax xidha ma jiro ayaguna waa niman jira nimankaasi waxay samaynayaan waxaa dadweynuhu ku buuxinahayaan kafadda muqaawamada laanna dadkii ma kala garanayaan nin cimaamad qabo cimaamad duwan baa anigay dhacay buu leeyahy ma kala yaqaanaan marka qolana waa qoladaas waa qolo kaleeto waxa weeye waa waxa loo yaqaano argosi dhacdooyin horay u dhacay maadaama wadankii amni uusan ka jirin waa la kala argoosanaya ayaduna waa jirtaa iyaduna wax qarsoon maaha qolo saddexaad baa afraad baa jirto ah dad etoobiyaanku markay waddanka ku jireen iyo nimankii la socday ayaa abuuray waxaana loo abuuray intay falal ku kacaan khariban in markaasi loo saaro muxuu ahaayey raggii dagaalamayo loo saaro waana qaab ay cadowgu sameeyo si loo dilo sumcadaada qadiiman wa xadiisan waa waxay sameeyaan laakiin kullu dalika waxaasoo dhan isku soo ururiyay kulli waxaa dhacahayo oo dhan dadweynihii waxay rumeeyeen inay ka dambeeyaan raggii muxuu ahaaye wadaadada ahaa iyo fasaa'ishii dagaalamaysa halkaa marka waxaa ka soo baxay nooc nufra sumcaddii oo dhibgaadhayo dhibaatooyin dadweynihii oo muxuu ahaa didsan mashaakishaasaa soo baxay wax qaa'im oo saaxada yaalay noqotay waxaa qayb ka qaatay ayada lafteeda oo in eedaasi la saaro waxaa qayb ka qaatay walaalaha hogaaminahayay raggii dagaalamayay iyo fasaa'isha oo arrintaa iyada aan siinin mudnaanteeda sidii loola dagaalami lahaa oo macnaha warbaahintana aan iskana barayeelin lana dagaalamin masaajidda intay yimaadaan ansixin oo tasxiixaad oo dhiigan daadanayo iyo xoolahan la qaadanayo iyo dhibkan dhacaya annagu ma samaynayno mana jirto cidda iyaga ka mid ee samaynayna sanad aan dabagelinoo sidii la rabay aan wax uga qaban qolyahan hadda aan sheegayno loo yaqaano muqaawamada xorta loo yaqaanana ayaga laftooda qaar badan bay ka yaqaanaan muxaarabadoodii iyo dabagalkoodii wax ka qabadkoodii way ka gaabiyeen walxaqu yuqaal intaasoo dhan oo isu tagtay baa waxay keentay marka wixii xunba xaawaale wixii in loo saariyo asagii waa aamusan yahay kama hadlayo shib weeye waxaan ma tafsiilinayo raayul caamkii ma saxayo taasi waxay keentay marka waxaanaad maqlaysaanoo muxuu ahaayey yani wax weeyaan muxuu ahaayey xataa dadkii khaasadii in badanoo ka mida ay rumaysteen inxiraaf waa jira ficlan oo camal jira inxiraaf waa ka dhalanaya laakiin camalka iyo madaahirta noocaasa ah waa mushtarak oo jihooyin dhowr ah baa macnaha ka wada qayb qaadanaya oo wadaagaya macnaha sidaas daraaddeed baa culimmada markii magaalada inta layidhi waddanka la yimid ay culimmadu isku dayeen tasxiixinta culimmadu inay wax saxaan isku dayeen qodobada ay xoogga saareen oo masaajidda iyo muxaadaraadka iyo tawjiihaadka iyo xoogga waxaa la saaray in qadaayaadka la tasxiixiyo
oo dhiigga laga hadlo oo xoolaha ruuxa muslimka laga hadlo oo laga hadlo muxuu ahaayay qadiyada takfiirka iyo riddada iyo dawaabideeda laga hadlo oo laga hadlo qadaayaadkan si cumuumana loo cilaajiyo ayay marka culimadu bilaabeen markii masaajidda ay ka hadleen oo qaabka wax u tawjiihiyeen iyo wasaa'ilul i'laamka iyo warbaahinta ayaa fasaa'ishii muqaawamada rag kamida ama qaar kamida waxay u qaateen oo fahmeen wadaadadani masaa'ishan ka hadlayay dadweynihii bay muqaawamada ka hor keenayaan hani qaar kamid ay gula doodeen oo waxay yiraahdeen wareedha idinka intii wadanku dagaal ka socdayna waad cararteen oo waad maqnaydeen markaad wadankii timaadeenna waxaad ka bilowdeen ceebihii mujaahidiinta una sheegtaan oo muxuu ahaay dhiig bay daadiyaan xoolay dhacaan kanay sameeyaan waxna aad aqridaan idinka muxuu ahaay ma waxa la idin soo diray inaad jihaadkii mujaahidiinta ka hor timaadaan marka waxaan ku yiri waajibku wuxuu ahaa inxiraafkii khaladaadku ma jiraan mise ma jiraan horta waa jiraan طيب intayna culimo idin soo gaadhin iyaga ma fuliyaha noqdana ma carrana ma isacrarin laakiin intaan qeyrkiin saxin idinku ma xadus saxweydeen sama wixii in la saxma loo baahan mise loo baahan waa loo baahan in la saxo طيب hadaad adigu ka aamusto sixi weydo oo aad cadeyn weydo ma la aamusa marka ma aamusaay waa waajib sharci ah ahlul cilmiga saaran muslixiinta saaran wixii khalad ee jira in la saxo hadii markaasi muxuu ahaay jihooyinka qaarkood ay marka u qaataan in iyaga dhibaato ku soo gaadhaysana ma ahe wax weeyaan in la qaato waliba waxaan u keenay qisadii nabiyullaahi Muusa calayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam oo ahayd suuratul qasas markuu rabbi ka hadlayay tabaaraka wa tacaala fircaun iyo nabi Muusa markay kulmeen oo fircaun uu doonayay inuu nabi Muusa sheegashadiisa iyo barnaamijkiisa ka hortago wuxuu ku yiri alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin soomaanan adoo yar ku korinin buuri waqtina soo dhexdanada maadan joogi jirin ficilkii la ogaana soomaadan samaynin waa ninkii qibdiga u dili jiray فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أدقوا أبا الله وأبو كير كافر كان هذا قال كي لقى موت لأن فرعون قال ما بيقونين صوما وحال لقوا أبا الله لأن كلمة كفر وحال إلى الله كان بمعنى ستر شيء مركب قريش أبال كي لقوا قال هذا قريش صوت موتشين وإذا مركب وحال إليه هاي كفر تصل معنا وأمد النبي كشيء سلعة زي الدمركة وتكفرنا العشيرة ويلوها فقرأنا مثال وأنت من الكافرين وأنكو كورني لحنا كو كورتي ويل يرباد أهيد خلط بعد قشي مركزات هذا أنت تسوي وركتبه ما أنت الله تميد واد خلدنتي نبي الله موسى محير يا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين مرهم فرعون أو ضد الله هذا وأنكو قرنا هيا ها توحيد يا رسالة بعض وركن كجهر تجيسه دعايات بعد ولا شيء ده ما دهن لكن محيري فعلتها وان سمي بالهرت صقير شما إذا وأنا من الضالين مركنا وان خلطنا به وقصة مركوا إن كعرّيوا إلهي بحكمة السوسي وركال كسر سكرنا مثال سيدا دبا هدو خلط شرو خلط كم محل والشيء جيا مسألة أحسن ما حتى الروح خلط كالشيء جيا هدو تشددي سؤالتا إنه أديك كوجح مايو أديك واحد أقعدتها muraayad u qaado khaladkaaga oo lagu tuso walaw cadawgaagu ba ku tusay faa'iido kugu jirta soo isagu dantu dooni ha kala haado laakiin adiga garawso marka kadibna wixii saxo hadad tiraado muxuu ahaay ana la ii jeeday waxba la burburinaya dana la leeyahay warkaas socon ma warkaasi waa soconaya meel dhowr rasaas quraanka baan u soo qaaday waa ficlan waana saas ficlan waa saas saladaasi marka inta ka gudbo محورك شناد إن دون يسجن إنا وحكت الماما وحوي عدوجة كيد كودا هي مخططات كودا قال هذا محا أدجنا محاسي أدجنا هذا قال هذا وحا أدجنا صاد جرنا إنسان وكيم حاكمته أنت عندما إثيوبيا لو كان صدي مريك ونكور كدقية جوابها هي لقى ساري
ilaa in laga takhallusay la rumeeyey ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waafajiyey walaaluhu haddana dib inay isu soo habeeyaan ciidamadii etoobiyaanka madaxa laga garaaco iyagii wixii la socdayba ay baxaan sooma nasri weyn bay ahayd nasri weyn maalin dibadda aan tagnay qadar maalin aan tagnay oo idinka warrami doona insha Allah ta'ala ayaa waxaan la kulannay qolo walaalaha oo muslimiinta ah oo culimo ah waxa lagu yiraahday aad baad u nasiib badantiin bay dhahdatin Soomaali leesh laana waxay yiraahdeen waxaad ahaydeen ummadahaas muslimiinta ah ummadii ugu dambeysay la qabsadana waad ahaydeen ummadii ugu horeysay xaruunada waad noqoteen buu waxay miisaalo u soo qaateen wadamo fara badan oo muslimiinta oo gacanta lagu hayo way Falastiin ka mid marka waxay dhahnay waa nicmad weyn oo inaad ihtifaadaan u baahan weeyaan bay dhahay nicmad weyn bay laakiin dad badan uma qeexna haddii marka ay muuqatay awood military haddii la isticmaalay waxba laga qaban waayo xalku marka wax weeyaan reer galbeedka iyo gaalada waxay isku qanciyeen xalkii military ma soconayee aynu qaab kale raadino si kaloo nimankan lagu la dagaalamo lagaga takhaluso muxuu noqon karaa iyaga in la isku garaaco waxay dhijeen la fagari ma dhijeen iyaga la isku jabiyaa sooma adiga markii la isku ka garaaco banaanka laga fiirsanaya bas marka ugu dambeysana midhaha la goosanaya waxay filayeen gaaladu saad la socotaan wasaa'il islaamka ay filayeen maalinkii ay ciidamada Ethioobiyaanku ka baxayeen xamar inay fasaa'isha muqaawamada ee jihaadaysay inay isku dhici doonto oo magaalada xamar goobaheeda istiraatiijiga ah qabsigooda inay isugu dhici doonaan aad bay u filayeen laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala kama dhigin markii xamar la galay qolo walba saldhigay u horeysay aan looga daba tagin walaahi shalay rag soo wada dagaalamay waliba kooxaba haba ahaadeen laakiin rag soo wada dagaalamay isqaanay ahay wax dhiba ayna dhicin shaah la wada cabahayo gaaladii waa yaabtay khadkaasi marka waa fashilmay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa fashilay طيب inta kaga ma hadhayaane khadka u daba yaalay waxa weeye sidii la isugu dhufan lahaa oo ay u dagaalami lahaayeen gaalada guud ahaan adduunka maanta muslimiinta iyo saxwada iyo xarakaadku waxay ugu tasniifsan yihiin laba qaybood tasniifka wuxuu leeyahay qayb kamida waxay u yaqaanaan mu'tadiliin al-islaamiyuun al-mu'tadiluun badhan waa nimanka ay u yaqaanaan qoyar socodka waxay rumaysan yihiin inay la noolaan karaan waa niman taayush ogol oo silmi ogol oo wax la wada qaybsan karo oo lala dhaqmi karo oo siyaasad garanaya oo reemagaal oo xadaariyiin ah qoladaasi waa qolo noocaas islaamiyiinta qaar kamida khaanadaas ay gaalada ugu jirtaa qolana waxay yiraahdaan waa nimanka mutashaddidiinta ah xaq jirka ah oo mutatarrifiinta ah irhaabiyiinta loo yaqaano qoladaasi marka xaq jirka ah waxay hadda qabaan waqti kale inay ka qancaan waa dhici karta laakiin hadda waxay qabaan nimanka noocaas ah in aan marnaba lala noolaan karin waa xubin jiran in la gooyana ay waajibta xal dhexdhexaada iyo ansaaful xulul waxa la yiraahdana ma aqbalayaan qolana halkaasay u saarantay طيب markii hore marka waxay isku dayeen oo istiraatiijiyadoodu ay ahayd inay qolada xaq jirka ay u yaqaanaan inay awood u isticmaalaan xoog kaga takhalusaan military ahaan inay kaga takhalusaan tii waa soo gaabatay hadda meelo fara badan waa ku fashilmeen waxba socon waa istiraatiijiyo kala la qaatay marka istiraatiijiyada hadda lagu shaqeynaya waxay tahay in iyaga iyo ragii islaamiyiinta ay ku magacaabeen way dhow yihiinoo way muxuu ahaayay way ina soo xigaano qoyar socod baa la dhahaa iyagiyo qoladaas sidii la isugu dhufan lahaa u dagaalami lahayn baa laga shaqeynaya inaga kaliya ma caalamka dhan muasasa waxa la jirta la yiraahdo istiraatiijiyaadka dawladaha reer galbeedka khaasatan Mareykanka ayay muxuu ahaayay baxthi ka samaysaa randi baa la yiraahdaa waxay qortaa qaabka maxaa khaldamay tilaabooyinkii la qaaday maxaa se bedel noqon karay waxa bedel noqon kara marka in kuwa xaq jirka lagu la dagaalamo
kuwa qunyar socodka ah barnaamijkaasi marka waa barnaamijkii ku talagaleen see loogula dagaalamayaa kuwan qunyar socodka ah dawladaha iyo xukuumaadka ha laga qaybgeliyo hal soo dhaweey kuwaas xiyana si siman ula wada dagaalamina waa fashilana qaar aan soo dhaweysan waa idinka arkay magaalada maxaa wadanka Masar ikhwaan muslimiinku hadda inay dawladda Masar ka qayb galaan oo si adag ku soo galaan oo baarlamaanka qayb weyn ay ka yihiin waxa loo yaqaanaba soo طيب حماس باتمي دورشي غشي way qaadatay sidii Jazaa'ir oo kale xoog lagu ma saarina laakiin waxoogaa si kayr gadisan bay ku saareen hadda waxay dantu ku qasabtay in Xamaas la raadiyo soo socdaan wufuudi Yurub isu daba maraysa Xamaas loo tago halala hadlo Xamaas maxaa laga dhaadhicinaya Xamaas waxa laga dhaadhicinaya siyaasadda laga qayb galiyo hadday Xamaas ahaanteeda loo daayo wax way kharib Soma wax way kharib siyaasadda laga soo qayb galiyo waa in la dhageystay leeyihiin waa in siyaasadda laga qayb galiyo muxuu ahaayay si sharciya loo doortay warkan akhriya Afghanistan baad la socotaan inay hadda leeyihiin dagaalkii socon maaye Taliban kuwooda soke ee qunyar socodka hal la raadiyo Karazayna meesha hal laga tuuro dawlad nimankaasi ku jiraan hal dhiso ya dawladdaas maxay sameeyay marka dawladdaasi waxay sameeyni Talibanka xaq jirka abay la dagaalamay reer galbeedna dhaqaaluhu bixinay soo ninna kaga dhiman maayo afghani ku dilbay marka afghani ku dil lafaha iyagu isku burburi nafs shay waati ay ka sameeyeen meesha la yiraahdo Iraq ka sameeyeen Iraq markay quusteen oo samreen oo sina yeeli waayeen ayaa waxay abuureen wax la yiraahdo majaalis as-sahawaat oo arabti sunnada ayay ka sameeyeen waxa uu kaba galiyay majaalis as-sahawaat tasarrufaat khaati'a oo gafa oo ku kaceen ragii dagaalamay qaar kamid ah oo u salaxday waxay rabeen inay helaan tii waxay keentay sahawaadkii majaalis as-sahawaat iyo shiicadi iyo balaayo iswata inta nimankii lagu salido muqaawamadii in dhabarka laga jabiyo oo dhib weyn loo geystay marka hadda gaaladu waa faraxsan yihiin waxay leeyihiin wallahi tijaabo cusub baa inoo soo baxday waxan mabaadii male moogta maalinba mid bay tijaabiyaan waxay tijaabiyeen haday ku najaxaan daraasaday geliyaan waxay dhahan waa dariiq sax haday ku fashilmaanna waxay yiraahdaan waan fashilanay ila mabaadii kama duulayaan moogta gaaladu mabaadii kama duush siyaaqa isaga bay Soomaaliduna hadda ku soo hagaagtay maqsuudku wuxuu yahay maqsuudka gaaladu wadataay wuxuu yahay oo ilaa hadda ayna ka daalin walaalihii shalay wada joogay halka cadow wada lahaa madaxda iyo isu ahaa muxuu ahaay raciyada isu ahaa ragii iyaga ahaa maanta inta la iska hor keeno hal isku jabiyo istiraatiijiyadaas waa istiraatiijiyada gaalada u taala waana mas'ala la fahmi karo taasina waxay suroobi kartaa markii xukuumaadka iyo andimada ay dhisayaan iyagu raali ka yihiin shacabku markuu raacsan yahay muqaawamada inay markaa kula dagaalamaan waa mas'alo fudud waxa iyadana qodob ah oo aad muhiim u ah inaan ogaano taas waxaan ogol leeyahay inaad garataan dibna waan ka tacliiqin doonaaye in maanta la islaayo oo raggaasi isku dhacaan oo Soomaali maanta ay dagaalanto fasaa'il iyo kooxa u dagaalanto waa maqsad iyo istiraatiijiye gaalaw qodobkaasi meel igu qoran insha Allah ta'ala waan ku soo noqon doonaa marka la biidin Allah tabaaraka ta'ala arinta kale ee xusuuda mudan waxa weeye waxa jirta ayadana oo muuqata oo gaalada tasniifkeeda galaya nimankii la dhihi jiray at-turuq as-suufiyya tariiqooyinkii suufiyada oo iyagana tasniifka gaalada ugu jira dadka lala noolaan karo culimada badiilka ah ay u haystaan caalamiyan waxa istiraatiijiya in nimanka laga soo saaro qarsoonida banaanka la keeno dawrkooda la muujiyo laguna bedelo nimankan xaq jirka adag ee wahabiyada waa in la gado marka waa inay gadmaan shucuubti laga gado waxa jira munadama dawliya oo suufiyada caalamka oo dhan ay ku jirto
oo mu'tamarad caalamiya qabata oo Mareykanka ku shirtay oo Yurub ku shirtay oo wadamada Carabta inta ku shirtay xubnaana laga waday nin naqshbandi ah dariiqada naqshbandiyada ah baa hadda amiir u ah dowrkaasi in marka la soo saaro oo meesha la tirtirayo dowrkii saxwada xagga waxa laga soo dhisayaa dariiqooyinkii suufiyada Soomaaliyana waad arkaysaa magacyo badan oo horey loo aqoonin baa hadda soo baxay kooxo aan la aqoonin baa hadda soo baxay goobo haysta dagaalamaya hubaysan Etoobiyaanku ay dacbinayaan si calanan ah oo la qarsanayaba soo ma la qarsanayaba ahlus sunna wal jamaa lana habina sunna wal jamaa wadaan ku baraarujin lah magacaasi waa mustalax sharci ah oo sax ah oo la dhacay oo la biliqasto in la soo celiyo u baahan ahlus sunna wal jamaa macnahaasi ama magacaasi waa magacii ay lahaayeen saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdoodu meel khalada inuu galana waa khalad inuu dariiq khaldan iyo dad khaldan magac u noqdana waa khalad in looga hadhana waa khalad in looga hadho maxaan ka wadaa bimaana magacaasi aan la salimin baan ka wadaa aan la salimin waa qariib xataa qabqablayaashii wadanka burburiyay rag kamid ah oo Etoobiyaanku ay soo direen inuu yiraahdo ahlus sunna ku dagaalamaya ahlus sunna warnimayo kaafiye kala dheeri waa wax la yaab loo soo wax la yaab lama wax la yaab loo marka taasina waa barnaamij muuqda oo la doonayo makaasibtii iyo thimaartii tomayaalka sana la dhisahay maanta si fudud inta loo baabi'iyo cid kale in badiil laga dhigo la soo galiyo shirarka hadda ay qabanayaan waxay leeyihiin oo dadweynaha ku leeyihiin annaga culimadiina ahayd laakiin waa nagu kufrideen wiilal yar yar oo Sacuudiga laga soo diray baa naga raacdeen maantana ha idin dileen ha idin burburiyeen nafsi baa idin haya habaarka naga baa idin ku dhacay soo habaarka naga baa idin ku dhacay naga ducaysta naga ducaysta oo jid muxuu ahay habeen laga lumay maalin baa loo soo noqdaaye soo noqdo culimadii nagu soo noqdo halkaas ay ka socotaa waxa uu kaba galiyay arinta iyada ah oo runtii khata ila ah aniga shakhsiyan tasarrufaadka ay sameynayaan fasaaisha qaar kamida ay sameynayaan oo ah wadaad iska wardinahayo oo bunkiisa iska dubanahayo oo meeshan iska xadraynahaya intaad la dagaalantood waxoogaagisi u diido inuu qori qaato wadaad mawlidahay markaad mawlidka kala dagaalanto oo ku kalifto inuu qori qaato ma waxbaad hagaajisay musabada leys waxbaad leys shaki ma jiro لأن مفسدة iyo darar raajihaad keento inkaarul munkarkana waxa sharti u ah markaad munkar inkiraysa waxa sharti u ah inaysan ka dhalanin munkar ka daran hadduu munkar ka darani ka dhalanayo munkarka inaad inkirta xaraam bay noqonaysaa لأن شرعته waxay u timid masaalixda inay soo jiido mafaasidana durkiso mafaasidii adraarta inay takhfiifiso haday wada zuulin kari weydo laakiin dibka inay siyaadiso sharcadu ma imaan wa khaladaadka waxaan u gogol xarayo tasarrufaad aan isleeyahay taqriiban waxay u gogol xarayaan soo ugu noqonayaan sidii barnaamijkaas u hirgeli lahaa waana tii aan idin sheegay Ciraaqna sidaas oo kala ka dhacay tasarrufaad ay ku kaceen walaaluhu qaarkood baa waxay makanisay cadawgu inuu barnaamijkiisa u fulo fiqi darrada iyo fahma darrada iyo ma'alatul af'aal oo dadku in badan ay fahansaneen iyo wax badan baa sabab u ah ayadana qodobkaasina waa qodob ayadana muhiim ah oo mudan runtii wax badan baa ku dhismaya ruuxu markuu Soomaaliya uu doonayo inuu go'aan ka qaato maanta maxaa ku haboon sidee qadiyadeeda loola macaamalooda markaad doonayso inaad qaadato waa inaad ogsoon tahay al-atraaf al-laa'iba fi saaha atraafta kala gedisan ee saaxada dhexdeeda ku ciyaaraysa ama ka jirta waa inaad ogtahay محورك اللحاد وحوي arrimaha aan soo sheegnay dhoo iyagu jira
waqtiga isaga baa waxa ku soo hagaagay shirkii ay culimadu qabteen waaqicii baan hadda idin suurayay shacabkii baan idin sawiray waxaan idin sawiray raggii soo dagaalamayay oo hubaysan waxaan idin sawiray dawladda iyo nidaamkan Djibouti ku soo dhismay waxaan idin sawiray gaalada iyo makiidadoodii siday rabeen ama haddaba rabaan waaqica markaan ka nimaadno kadib intaas iyagoo jira oo kulli xisaabtankooda ay mudan yihiin culimadu waxay ku qabteen mu'tamarkaada magaalada Xamar xilligaas ku soo aaday mu'tamarkaas waxaa loogu magac daray mu'tamar culamaa'i Soomaal lilmusalax magac noocaas oo kale lagu magacaabo waxa isugu miisaan idin sheegay culimo fara badan culimadaasi miisaanka ay saareen waaqica waa ka aan idin sheegay markay sida wax u miisaameenna ijtihaadkoodu wuxuu tusay inay qaraaraadka iyo bayaanaadka aad aragteen ay soo saaraan waaqica sawirka markay ka qaateen fahamkoodii wuxuu siiyay daawo maxaa noqon kara daawadu marka waa laba qaybood qaybi waxa weeyaan waa kaalmaati degdeg ah dhig joojin xogaa kaalmaati degdego bal dhiga lagu joojiyo talabaadna bal xal rasmiya sidii loogu gudbi lahaa waa qodobka kale waa bayaanaadkan marka hadda soo saaray muxuu warbaahinta galay ee culimadu ay soo saareen iyo qodobadani taqriiban waxay ka dhigan tahay nooc muxuu ahay dhig joojin ah iyo degdeg kadibna khatawaad iyo tilaabooyin kala ka dambeeyo oo idin sheegi doona insha Allah ta'ala ay culimadu qaateen qaabka ay marka wax u soo saareen mulaaxadaadna waa yeelan karaan khaladna waa ku jiri karaa sawaabna waa ku jiri karaa laakiin waxa ku filan inay tahay majmuuca oo culimadii kamid oo fadhiisatay oo isaa wax ula qumanaadeen adiga marka ra'yigaaga haduu ra'yi yahay ra'yiga wadaadada kama fiicna soo haddii baraarujin yahayna majaalku waa ku furan yahay insha Allah ta'ala intiqaadaad loo soo jeediyay baa jira oo rag culimo ah iyo qeyrkood baa ay u soo jeediyeen bayaanaadka waana ka hadli doonaa insha Allah ta'ala intiqaadaadkaas iyo meelaha laga dhaliilay inta badan macluumaad yari baa keentay fadhi gooniyaan u xaqidi doonaa insha Allah ta'ala culimada marka maqsadkoodu waxa ay ujeedadoodu in waajibka sharciga horta loo cadeeyo adraaftan ishaysay saaxada joogta nidaamkan Djibouti ku soo samaysmay iyo dawladda in loo cadeeyo maxaa waajib ku ah qoliyaha walaalaha hubaysan ee ka soo horjeeda ayagana inaan u cadeyno culimadu u cadeeyaan maxaa waajib ku ah fi hadhihi almarhala bidaat sharcan maxaa waajib ku ah waa aragtidooda way sida iyagu culimadu u arkeen taa horta way taargad gareeyaan waxay taargad gareeyaan sidoo kale in dhiiga la daadintiisa dadku waa dad muslimiin ah dhiiga daadintiisa in laga fogaado xoolaha macsuumka iyo dimaada macsuumka la xifdiyo arinta ku saabsan tawjiihaad fara badan bay ka bixiyeen iyo bayaanaad yaani wax way oo qodobaday taargad gareeyeen oo aad tarkiiska loo saaray ayay kamid ah waxa kale oo iyadana maqaasida kamid ah inaan lagu dhicin dabinkii gaaladu qooshay oo iyadoo khayr la doonayo oo khayr siyaasi loo socdo god gaala qoday inaan lagu daadanin lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'uni zama kha'in ma'i kha'in kuna ima khada'a sama maqulatu umar yani mu'minku inuu kha'in noqdo ma bal inuu wax walba ka shakiyo oo uu noqdo nin uu muxuu ahay buufis qaba buufis inuu noqdo lama rabo dad baa taxadarku wuxuu gaarsiinayaa shay walba inay tuhmaan mu'min mutaghafil ah ba khayr badan bay mashaafiic laga sheegay mutaghafil waxa yala far badan waxa laga dhaw indha inaad ka laabto laakiin haddaad tiraahdo wax walba balaaya ka dhex muuqata oo wixii buufis uu ku noqdo khatarteeda leedahay laakiin waxa la doonayaa xadar iyo taxadar miisaaman soma xadar miisaaman وكان النبي يقول له صلوات ربي وسلام عليه المؤمن المنافق خب لئيم والمؤمن غب كريم
غب كريم والمنافق خب لئيم غبك waxa weeyaan waa ruux marmarka qaar kood iska niyadsan oo waa la siri marmar niyad sami waa kariim waa wanaagsan waana qibbi oo marmar baa god loo qoday ku dhacay maxaa ku ridaya niyad wanaag munaafiquna waa ghirri mar walba waa foojigeen sida tukoho kala bar tukoho la'im xun hadana macnaheedu waxa weeye adoo taxadaraya oo makiidada iyo dhagarta iyo dabinka gaaladu ku dhigayso ka taxadaraya ayaa hadana waxa la rabaa dhanka kale wixii inuu san cudur kugu noqonin oo dadkii oo dhan ay ku wada noqonin jaajuusiin ku raasanahay oo muuminiintii aadan khaa'iniin ka wada dhigin oo aadan dhiin hebel gaaladu la socdo gaaladu la saaxiibay oo xaq uu soo maray oo godad buu soo maray oo wabillahi tawfiiq warukaadi hawaskaasi hadduu ku galana khatartiisu leeyahay salada iyada marka in yaani dhagarta iyo godka gaaladu qoday oo macnaheedu uu yahay in lafahan la isku jabiyo dadkan la isku shalay qabaa'ilba isu laayeen maantana inay isu laayaan urur diineed godka inayna ku dhacin oo sidii tii hore u fashilantay tan loo fashiliyo target culimadu ay macnaha wax weeyaan ay aad iyo aad u fiirinayeen buu ahaa waxa kamid ah ujeedooyinka iyo qasadka ay culimadu lahaayeen markay qaraaraadka soo saarayeen dacwada sumcadeeda in la ilaaliyo makaasibtii dacwadu ay soo dhashay iyo waxay kasbatay in aan la duminin tobanaan sano oo dacwadu ay socotay ayaa waxay soo saartay midho aan caadi ahayn mujtamacii bay saamaysay qaybihiisii kala gedisanaa siyaasigii ganacsadihii hooyadii dumarkii kulli way saamaysay bal waxaan dhihi karaa caalamkoon aad u maray mujtamaca Soomaaliyeed dacwada saxda ah saamaynta ay ku yeelatay mujtamac kale oo adduunka jooga ku yeelatay ma jiro bal in badan adduunka soo mara isbeddelka ay ku samaystay xakama hadlaya xagga kayfka kama hadlay laakiin kamka ka hadlay kamka isbeddelka oo xagga tirada laakiin xagga quality-ga iyo kayfka marka loo noqdo dacfi badan baa ku jira saxwada Soomaaliga dacfi badan baa ku jira dacfigeedana waxaad ka garanaysaa muddada ay jirtay culimada ay soo saartay oo maanta malaajic noqon karo diinta loogu noqon karaay waa dad fara ku tirisa intooda badan maxay noqdeen dadka nin waxoogaa afaraydiisa tuuran karo majaalista ka doodi kara sooba ayad soo dhufsan karo xadiis soo dhufsan karo laakiin wax weyn aan loogu noqon karin badankeed saasay noqotay waxaad ku garanaysaa meelo fara badan oo baahi dacwo ka jirto markii la yiraahdo war nin sheekhan u baahanahay oo marjica oo masaa'isha diiniga naga qanciyo oo ummadii isku wada waad raadin inaad heshaab adag soma laakiin markaad u kacdo xagga tirada masaajidii waa buuxda waa kan sigiski meeshaad ka meelaad ka fadhiisato baad xawalaadi soma tiradii waa tif laakiin xaggii tayada waa dacfi ku jira soma waa maksab iyada lafteeda isbeddelkaasi kamka ah waa maksab weyn maksab waxa ah ninka multazimka ah diinta ku dhaqmaya ee wadaadka ah wadaad qeexid badan buu baahay wadaad ninka wadaadka ah meeshuu shalay joogay markay dacwadu bilaabanaysay iyo maanta meeshuu joogo markaad fiiriso waxa ku soo baxaya faariqa weyn ee u dhaxeeya labada meelood iyo dacwadu maksabkeedu meeshuu gaaray hal midaal baan insiinaya kullabaad ma waqtigu noo saamixi maayo hal midaal dacwadu markay bilaabanaysay oo saxwadu bilaabanaysay dadka sunnada in loo akhriyo oo tawxiidka loo akhriyo sunnada lagu soo celiyo kitaabka sunnada u soo noqdaan markii la bilaabayay qabla uquud ninka wadaadka ah xagee buu joogay mujtamacu wuxuu ka rumaysnaa masaalixda iyo danaha caamka markii la yiraahdo waxay ka rumaysnaayeen nin aan lala tashanin oo ra'yi lahayn oo geedaha iyo gogasha aan imaanin oo markii rag iyo dumar ku xisaabtamayaan rag dumarka lagu xisaabiyo soma rag iyo dumar kee badan baa leh waxay dhaheen hadii wadaadada dumarka lagu xisaabiyana dumarka badan hadii wadaadada xagga ragga lagu xisaabiyana ragga badan waa maamaha Soomaaliyeed
halkaasay wadaadka geeyeen ha waxoogaa meelaha qaarkood jawaanibta qaarkood way u ogolaayeen laakiin haddana mahmaaha fara badan oo ku xumayna bay ka sameeyeen raashinka way siin jireen haddana way ka mahmaaheen raashinka way siin jireen haddana way u mahmaaheenoo ninuu guri weyn oo balaayo qabo wax kasta cuna bay ugu mahmaaheen wadaad ninka la yidhaahdaa halkaasuu joogay maantana wuxuu joogaa wuu ka soo kacay meeshii garta inuu gar jeedin karo oo tala leeyahay oo ra'yi leeyahay baa la ogaado geedihii gogashii buu yimid waa ka soo kobcay oo waxoogaa ugaas buu noqday oo suldaan buu noqday oo reeraaba doortay waxoogaa waa ka soo kacayoo wadaad waa fulay baa la qabay wadaad dagaalamayaa soo baxay ya waa cajiib hadda ogow taariikhda marka dib loogu noqdo caalamul islaami dadkii gumaysiga ka xoreeyay intooda badan xarakaad islaamiga ahayd laakiin markay gaaladii saareen baa midhihii waxaa goostay cilmaaniyiin sooma iyo ragay gaala soo tababartay haddana maca daalika xaggay ka timid wadaad waa fulayo waxba iskama celin karo way beenooday wadaadkii gaaladii la dagaalan walxamdu lilah ilahi tabaaraka wa tacala waddankii waa kaga saaray wabilmunaasaba dagaalka gaalada lala dagaalamay wadaad keliya ma lahayn mujtamaca soomaaliyeed bishataa fasaa'ilihi dagaalka waa ka qayb galay waxaa aad nasiib xumo u ah wadaadadu markii intay dagaal galaan ay wixii meesha ku dhintay sheegayaan waxay yidhaahdaan 2 nin baa nagaga dhintay 10 shacabna waa ku dhinteen oo shacabka ayuu u xisaabaya adiga labada wiil ee ururkaaga ku jira markaad sheeganayso shacabkani soo adiga kuma xisaabna كان المفروض إنها ترى هذا لبيه توم بقول إنتاي ولا لبيه توم ضدك يجي أبى ماشي كتجي وحيالها ضدك إنك شيء غير يوم بكمت مرمي وحسابتهم هو سيم بعض وضع ثاني ومدي بكم تشان يسام بالليل وأنا هذا القرء وحباك كتير هذا بس صوما هذا كرسي تمادان إذن كإنه إذن كأ كذا هذا مال قبستان ضدك كقيب قليل ميزان وقاسيدي يا صلادين تعقد هذا مريسين شرفتان بالليل وركاس وورشرة وجو وركاس وورشرة سياسة النبي كان ما أهانتين صلوات ربي وسلام عليه سياسة رسولك وحي أهيد صلوات ربي وسلام عليه مجتمع فصائشي سكل جدسا أودو ذا إنه نبي استعماله صلوات ربي وسلام عليه أنظمة الدسان إيه النظامية الدسان بيلوها أيليهين إيه هجامية رقميديتنا سيدو ذا إنه أدى صلوات ربي وسلام عليه لكن أيقو سيدو ذا إنه استعماله خير أو استعماله هذه النبي قصاصها صلوات ربي وسلام عليه لكن أجاسي صلادين أودي لجلو ورجع هيو قول ليه الرعيات باتين تلانا مليهين ورنوية واحد سوا واحد كي يرود دروي كي تشنوه وين القرن حسن هذا ودادنا خلد وي منص حسنا ومضى سنة أنت آذن كقيب قلينين إن برنامج كسياسة بلايد وكشرت أنت آذن كقيب قلينين إنه وحيكوه هيستان إن الله هيستياليهين وعدوا دالوك واحد أمني أسوعلي نبض أسوعلي كتلين شري ريرك أتلين شري سياسي إيو نيكي متعلق سوق قاعدي ما أنت مكاسب تدو أي سوق قاعدي ومضي الصوماليات كالسوني دي إني ما أنت هايستان ضدك وداد نين دين الإسلام كهالو رقم له هدي أركان وداد دو يقاني حتى أضياء شبيلها ريف مركا برنامج كإستقاء مكاسب تاسي ما أنت قاعدي نكمتها هذا مركا ومسألة محوها يومضان إنا نحسو waxay culimadu sidoo kale maqaasid muhiim u arkayeen oo diiradda ay saareen markay qaraaraadkan soo saarayeen ummaddu inay u baahan tahay nidaam iyo dawlad amniga iyo istiqraarka soo celisa daruura laga maarmaan way laano fawdadu saalix ma ah ninna umarroona diinna umarroona adduunyana umarroona fawdadaasi in wadanka laga saaro oo nidaam wadanka loo sameeyay waa daruura laakiin nidaamka la sameeyay waa inuu noqdo nidaam umadu kaga nasato dhibkii soo jireenka ahaa ee qaan gaaray ee uusan noqonin nidaam intuu jid khalada hadana qabsada umada dhibaato hadana u soo jiida waa inuu noqdo nidaamka iimaanaya mid ku istaaga asaas sax ah oo umada aqeedadeeda iyo diinteeda iyo kitaabkeeda u keena على هذا المنطلق كانطلاقه هذين نقوم ويدو اللي يراده اي نظام اسكيمات
ودتك قاركود ومد مركي داشي oo 20 sano ku dhawaad ay rafaasanay maanta waxay ka taagan tahay war jinna hay yimaadeen jinna noo taliya bal wuxuu hay yimaada wuxuu yaa wato gaalna no waa darafkii kale way darafkii kale laakiin waa inaan laba dalabno dawlad iyo nidaamna waa in la keeno isla markaana hadana dawladii iyo nidaamkii waa inuu noqdo mid damaani kara biidni Ilaahi tabaaraka wa taala inuu san dibkii umadu ay ku jirta ayna ku soo noqonin hadii inta been la isu sheego la yiraahdo nidaam baa la iska rabaay hal la dhiso wuxuu doonay ba ahaade ma dhismayo amarka kooban waa marka labaad ee haduu dhismo ma dheera marka uu isaguna dib isugu noqon doono لأن السنة إلهي باهيستو نبي قواك يدي صلوات ربي وسلام عليه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حبين مضح ضوضو أين كتابك إلهي كحكم إلهي لحظوضو لباطة لقاه ها مرك كتابك يبان كتغينا دبكنا وان كبحينا وسعنيسا لا ما سعنيس وقروا وإن مرك النظام له لو صح وانا ضروري إن لو صعيه si alla sidoo ku iman karana waa in lagu dadaalo shariicada waafaqsan وبالتالي nidaamkuna waa inuu noqdo nidaam qaacida sax ah ku taagan oo thimartii iyo midhihii loo soo galay muxuu ahaayay juhudi aan dayicin umada aan dib ugu celin dhibaatooyinkii 20 sano soo jiray ku dhawaadka wadanku inuu san mar labaad xuruub ahliye dib ugu noqonin waa sunna ilaahay hadii dariiqa la khilaafo la garan maro xuruubta ahliga iyo fitankaasi dhamaan maaya laakiin hadii kitaabka ilaahay la cuskado nidaam laga dhigto xal baa la gaari insha Allah ta'ala jalsadeena qaybteedii hore way caaw insha Allah ta'ala intaas ayaynu ku gabagabeynaa biidilaahi tabaaraka wa ta'ala habeen dambe ayaanu qaybta labaad sii wadi doonaa oo ku saabsan waaqicaas iyo wadciga hadda aan suuraynay iyo targetkii iyo maqaasidii culimadu ay tooganahayeen inta hadaynu fahanay waxaan uga gudbi doonaa go'aamadii ay culimadu soo saareen iyo maxay ku saleeyeen waxa ka dambeyn doona biidilaahi tabaaraka wa ta'ala inaan ka hadalno go'aamada haddaad soo saarteen wadaada hotel iska fadhiistay baad ahaydeene maxaa idin ka dambeeyay maxaa kala sameeyeen wax tilaabo ma qaadeen misintaad iska hadasheen baad iska soo tagtay ayadana waan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala habeen kale inaan u baahnaa dhixi karaysa oo bacd al-intiqaadaat oo qaraaraadkaasi culimadu soo saareen lagu sameeyay ayadana jawaabo basiidaan ka bixin doono sidaasi iyo wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا عيد بالبشاير يا عيدنا حيا الهلال علينا سبحان من سوى لفى بالخير وعوض عيد الهنا محلى ربي يعطينا خير العالي في سماء العالي في سماء يا عيد بالبشاير يا عيدنا حيا الهلال علينا سبحان من سوى لفى بالخير وعوض عيد الهنا محلى سبحان من سوى لفى بالخير وعوض عيد الهنا محلى ربي يعطينا خير العالي في سماء العالي في سماء